بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan wanaagsan dhammaanba dhegeystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhegeysanayo halkani waa codka Soomaalida Finland SSM Verkosto oo aad kala socotaan barta internetka Isniinta Arbacada iyo Jimcaha oo aanu idiin soo gudbino wararka ku saabsan viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale. maanta waa maalin Isniina bisha May ee ku jirno 10 sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee wanaagga THL waxaa viruska laga helay 143 qof oo hor leh dalkan Finland iyadoo dhimashaduna ay ahayd 2 qof. maalintii shalay ahayd ee hadda tirada laga helay waxay ahayd 162 sabtidiina 229. tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ayaa taasi ka dhigaysa 88,866 qof. labadii toddobaad ee ugu dambeysana tiro gaaraysa 2,929 qof ayaa ku korortay tirada dadka laga helay viruska corona. isku darka guud ilaa iyo 38 magaalo oo ka mid ah magaalooyinka dalka Finland ayaa laga helay viruska waxaana ugu badan Helsinki 23, Espoo 14, Salo iyo Lahti 13 midiiba, Vantaa 12, Turku 11, Nurmijärvi 6, Kokkola 5, Oulu 4 waxaa min 3 laga helay magaalooyinka Raasio, Kaarina, Porvoo iyo Tampere, min 2 waxaa laga helay Mäntsälä, Orimattila, Tuusula, Rauma, Hovinka, Hämeenlinna iyo Järvenpää. inta kale ee soo hartayna min 1 qof ayaa laga helay. xanuunka viruska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 121 qof, qaybta gargaarka degdega ahna 26 qof ayaa ku jirta. sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee wanaagga THL, tirada dhimashada tan iyo markii cudurka safmarka uu ka bilowday Finland ayaa haatan maraysa 924 qof. kadib markii ay hay'adda THL sheegtay maanta dhimashada 2 qof oo hor leh, waxaana labadii toddobaad ee la soo dhaafay tirada dhimashadu ay wadarta guud ahayd 19 qof. waxaa kaloo hay'adda THL ay shaaca ka qaaday in viruska nooca cusub ee corona ee laga helay dalkan Finland haatan uu marayo 5,946 qof. 4,924 ka mid ah waa nooca Ingiriiska, 1,020 waa nooca Koonfur Afrika iyo 2 nooc ah kan cusub ee Brazil. waxaa jira iyagana warar kale oo tilmaamaya in nooca cusub ee Hindiya haatan ka dilaacay ilaa iyo 10 qof qiyaastii laga helay, inkastoo weli baaritaankaasi uu dhexda marayo. hay'adda THL waxaa kaloo ay sheegtay in haatan tallaalka ay qaateen dad lagu qiyaasay in ka badan 1,944,725 qof. wararka kale ee ku saabsan dhinaca xayiraadaha iyo xadimaha la soo rogay ay dowladdu maanta go'aan ka soo saartay sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha bulshada iyo caafimaadka, taasi oo sheegtay haatan in wixii ka dambeeya arrimaha xadimaha iyo sida loo qaadayo lagu wareejin doono maamul goboleedyada, iyadoo markaasi magaalo walba iyo maamul walba sida ku habboon ay arrintaasi ula jaan qaadi doonaan. tusaale ahaan waxaa ugu horeyn doona in dib loo soo celiyo furitaanka goobaha guud ee dadka isugu yimaadaan sida madxafyada iyo maktabadaha, iyadoo markaasi goobahaasi dadkii macaamiisha ay imaan jiray tiradii kala bar la qaadan doono. sidoo kale waxa ay dowladdu sheegtay in markaasi maamul goboleed walba uu u fasaxan yahay in uu xayiraadahaasi u qaado hadba sida xaaladooda ku habboon. dhinaca isu imaatinka ayaa meeshii 6 ahayd waxaa meelaha qaarkood laga dhigay ilaa iyo 10, iyadoo xaaladuna hadba sida ay tahay loola jaan qaadi doono. wararka kale ee dadku aad ay u sugayeen waxaa ka mid ah in sanadkan ciid la tukan karo iyo in kale, taasina waxaa jawaabteedu noqotay in weli aan wax ciida la tukan karin maadaama goobihii isu imaatinka aan la ogolayn wixii ka badan 10 qof. sidaa darteedna qof walba ciidiisa uu gurigiisa insha Allah sanadkan iyo ciidan ciidal fidriga uu ku tukan doono. dhinaca kale ee wararka ku saabsan arrimaha xajka oo iyaduna ay dowladda Sacuudigu war ka soo saartay isla markaana ay shaaca ka qaaday in sanadkan xajkii uu jiri doono, laakiinse ay jiraan shuruudo adag oo la soo rogi doono. welina shuruudahaasi ma aanay soo bixin, marka ay soo baxaan ayaa la ogaan karaa in sanadka hore uu ka duwan yahay oo markaa ay ogolaanayaan in dadka dibadaha qaar ka mid ay yimaadaan iyo in sidii sanadkii hore oo kale uu xadidan yahay. wixii dambe ee warkaa ku saabsanna gadaal ayaad wararka kala socon doontaan. dhinaca caalamka markaynu fiirino adduunweynaha waxaa haatan uu marayaa dadka tirada viruska laga helay 159,796. dhimashadana waa 3,308,358. qaaradda Yurub 51,402,809 qof ayaa laga helay, waxaana u dhintay 1,092,098. qaaradda Afrika waxaa laga helay 4,673,466, waxaana u dhintay 124,715. qaaradda Aasiya 43,951,311 qof ayaa laga helay, 569,432 way u dhinteen.
ilaa iyo weekendigi lasoo dhaafay wadamada aadka u daran waxaa kamid ah Hindiya oo tiro laga gaaraysa 366,499 qof laga helay 24 saac lasoo dhaafay 4,000 tiro ku dhowna ay u dhinteen. Hindiya haatan 22 milyan ay kor u dhaaftay oo 23 milyan ay ku sii socotaa, dhimashadana 250,000 ay ku dhowdahay. Brazil 34,162 qof ayaa laga helay, 934 waa ay ka dhinteen. Brazil 15 milyan kor bay u dhaaftay tirada guud, dhimashadana 430,000 ayay ku dhowdahay. Mareykanka ayaa asna 24 saac lasoo dhaafay 22,200 qof laga helay, dhimashaduna 241 ayay maraysaa 24 saac lasoo dhaafay. Mareykanka haatan dhimashada guud 600,000 ayuu ku dhow yahay. Dhinaca kalena tirada guud ee dadka laga helay 34,000 ayuu ku dhow yahay, inkasta oo marka loo barbar dhigo xaaladihiisii hore Mareykanku haatan uu aad uga fiican yahay. wadamada aan dariskanahay Sweden waxa ay maraysaa tirada guud 1,792 qof, waxaana dhimashadu ay maraysaa 14,173 inkastoo 24 saac lasoo dhaafay aanay waxba diiwaan gelin. Denmark waxaa 24 saac lasoo dhaafay laga helay 874, dhimasho lagama diiwaan gelin. Tirada guud waxa ay ku dhowdahay 260,000, tirada kale ee dhimashadana waxa ay ku dhowdahay 2,500. Norway 231 ayaa laga helay 24 saac lasoo dhaafay, 116,365 ay tirada guud maraysaa, dhimasho lagama diiwaan gelin. 767 ayaa laga helay ama ay maraysaa tirada guud ee dhimashada. Dalka Sacuudiga 942 qof ayaa 24 saac lasoo dhaafay laga helay, 430,000 ayuu ku dhow yahay tirada guud, dhimashada 13 ayay ahayd, 7,000 ayay kor haatan u dhaaftay oo 72 qof ayaa dheer. Soomaaliya wax diiwaan gelina lama samayn 48 saac lasoo dhaafay, waxaana ay ku taagan tahay tiradu 14,415 oo ah tirada guud ee laga helay, dhimashadana 747. dhegeystayaasha qiimiga qaayaha mudan hawada naga dhageysanayo, wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM Verkosto, inta ayaan kusoo koobaynaa. Tan iyo inta aan dib ugu kulmi doono mid lamid ah barnaamijkan, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, iyo in qof walba uu kaalintiisa ka qaato sidii uu u hoggaansami lahaa talooyinka ka imanaya dhinaca dowladda iyo hay-adaha caafimaadka.